ololaha isxilqaan oo ujeedkiisu yahay in muwaadin kasta oo Soomaaliya uu saacado kamida waqtigiisa geliyo dalka ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhawaaqay kadib kulan maanta uu dugsiga tababarka ee booliiska General Kahiye kula yeeshay xogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir. intii ay socotay munaasabada ayaa waxa goobta la isugu keenay xoogag wadaniyiin ka socda gobolka Banaadir waxaana kooxaha fanka ee ciidamada booliiska iyo militariga ku soo bandhigeen suugaan ka turjumaysay wada shaqaynta shacabka iyo ciidamada. gudoomiyaha guddiga abaabul qaran Yuusuf Diiriye oo kamid ah guddigii ka soo shaqeeyay dhismaha xoogagan wadaniyiinta ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in shacabka Muqdisho ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan dawladda. runtii diyaarinta xoogagan waxa lagu bixiyay waqti fara badan, waxa lagu bixiyay fakar fara badan. dadkan waxay u diyaarsan yihiin qarankooda, bulshadooda in ay kaalin mugla ka qaataan. kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Xuseen Maxamed Nuur ayaa sheegay in gobolka Banaadir uu wado qorshe horumarineed oo amnigu ahmiyadda koobaad u leeyahay. madaxweyne waxaan rabaa inaan si hordhac kuula wadaago maamulka gobolka Banaadir wuxuu heer gabagaba ah marsiinayaa qorshaha horumarinta gobolka Banaadir ee 5 sano kaasoo ka kooban 6 tiir isla markaasna ku saleysan qorshaha horumarinta qaranka iyadoo ahmiyadda la siinayo amniga. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay xogagan wadaniyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay inay aas u yihiin ololaha isxilqaan oo la rabo Soomaalidu in iyadoo isku tashanaysa ay mustaqbalkeeda ka shaqeyso. xogagan wadaniyiinta idinka aas u ah aasaaskii waa idinka oo aan ka bilownay gobolka Banaadir oo aan doonayno dalka oo dhan inaan ku shaacino aan gaarsiino meel walba oo xitaa aan gaarsiino qurbaha Soomaalida joogta oo qof walba oo Soomaaliya uu isxilqaankan uu qayb ka noqdo. madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay sidii ay uga shaqayn lahayd amniga horumarinta dhaqaalaha oo qayb ka tahay in ganacsiyada dalka la siiyo fursado in badeecadu ay u geyn karaan suuqyada adduunka. 30 sano ugu dambeysay dadka ganacsatada ah runtii horumar weyn ay sameeyeen. waxaan rabaa inaan badino ganacsatadii oo aan u keenno maalgelin shisheeye aan u keenno. waxa weeye ganacsatada inaan fursado badan siino ay kula tartamaan ganacsatada adduunka. ganacsatadana waa inaan xuduudada u furno si ay Kenya wax u geeyaan, Ethiopia wax u geeyaan, Djibouti wax u geeyaan, caalamkiisa kale wax u geeyaan. inaan ganacsatada furfurno oo uu noqdo dalkan free enterprise oo maxaan ku radaa banaanka yaalla oo iska cad shuruucdeeda iyo waxeedana leh dadkuna ay dhiibaan canshuuraha. isla goobtan munaasabada ayuu madaxweyne Farmaajo waxa uu ku dalacsiyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed oo loo dalacsiyay sareeyagaas. dhismaha xoogaga wadaniyiinta dalka gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ee ka socda degmooyinka gobolka Banaadir ayaa talaabo ay rabto dawladda Soomaaliya inay salka ugu dhigto amniga dalka gaar ahaan in ciidamada qalabka sida ay soo afjaraan dhibaatooyinkii Soomaaliya muddo ka socday. Cali Baasha Cabdullaahi dugsiga tababarka booliiska ee General Kahiye magaalada Muqdisho.